Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Afrika waa qaarad muhiim u ah dhammaanba reer galbeedka iyo inta la awoodda ah. Waana qaaradda labaad ee ugu weyn adduunka. Waana qaarad hoy u ah wadamada ugu quruxda badan caalamka ee dhanka kaymaha. Haddaba halkan waxaan idinku haynaa 10 waxyaabood oo laga yaabo inaadan ka ogeyn qaaradda Afrika. Afrika waxay leedahay 55 wadan. Arrintan ayaa Afrika ka dhigaysa qaaradda ugu wadamada badan adduunka. Afrika waxay ku fadhidaa 30 milyan oo kiiloomitir square. Maadaama ay Afrika tahay qaarad aad u weyn, waxay u kala qaybsantaa 5 qaybood. Waxayna kala yihiin Afrikada Waqooyi, Afrikada Bari, Afrikada Dhexe, Afrikada Koonfureed iyo Afrikada Galbeed. Afrika waxay ku fadhidaa 30 milyan oo kiiloomitir square, taasoo micnaheedu yahay inay ku fadhido 20% dhulka adduunka. Luqadda ugu badan ee Afrika lagaga hadlo waa Carabi. Waxaa macquul ah inaad la yaabto oo aad isdhahdo 55 wadan sidee Carabi ugu badnaan karaa, balse way jiraan luqado kale oo badan, laakiin waxa ugu badan Carabi. Waxaana Carabiga ku hadla 170 milyan oo qof. Xagga Ingiriiska oo soo raaca ay ku hadlaan 130 milyan oo qof. Kadib waxaa soo raaca Swahili, Faransiis, Barbar, Hausa iyo Portuguese. Sidoo kale waxaa jira luqado badan oo lagaga hadlo, kuwaasoo aan idinla wadaagi doono qodobkeena xiga. Afrika waxay leedahay in ka badan 2,000 oo luqadood oo la aqoonsan yahay. Intan aan kuu sheegayo waxaan ka yaraysanin inta aan la aqoonin, waxaana 3 meelood hal meel luqadaha adduunka lagaga hadlaa Afrika. 2,000 ee luqadood ee aan soo sheegnay, 200 oo ka mid ah waxaa lagaga hadlaa waqooyiga Afrika oo uu ka mid yahay bartamaha Saxaraha, oo loo yaqaano Afro-Asiatic languages. 140 ka mid ahna waxaa lagaga hadlaa bartamaha iyo bariga Afrika oo loo yaqaano Nilo-Saharan languages. In ka badan 1,000 waxaa la yiraahdaa Niger-Saharan languages, waxaana ku hadasha inta kale ee soo hadhay. Qoris la'aantu waa 40%. Inkastoo Afrika ay leedahay kheyraad, sidoo kalena waxay leedahay dad aad u tiro badan. Waxaa batay faqriga, taasoo keentay in dadku in badani ay noqdaan caamo, waxna aan qorin, waxna aan akhrinin. Wadamada ay aad ku saameysay qoys la'aantu waxaa ka mid ah Ethiopia, Chad, Gambia, Sierra Leone, Senegal, Niger, Benin iyo Burkina Faso. Afrika waa qaaradda ugu kulul adduunka. Inkastoo dadka badigood og yihiin inay Afrika cimiladeedu kulushahay, haddana waxay noqotay qaaradda ugu kulul adduunka. 60% wuu qallalan yahay dhulkeeda, waxaana daboolay saxaro. Waxayna leedahay dhulka ugu saxaraha badan adduunka, heerkulkiisuna yahay badanaa 100 Fahrenheit ama dhaafsiisan 40 centigrade. Halka meesha ugu kulul ee diiwaanka caalamka gashay ay tahay magaalo yar oo la yiraahdo Al-Aziziyya ama Al-Asisiya oo ku taala dalka Liibiya, taasoo gaadhay 136.4 Fahrenheit ama 58 centigrade. Sidoo kale waxay qaaraddu leedahay meelo qabow xad dhaaf ah leh, taasoo gaadhay -12 Fahrenheit ama -23.9 centigrade ee magaalada Afrayn ee dalka Morocco. Tana waa mid ku tusaysa kala duwanaanshaha wadamada kala duwan ee Afrika iyo cimiladeeda. Afrika marbay u qaybsaneyd 10,000 oo qowmiyadood. Gumeystaha ka hor, Afrika waxay ahayd mid ka kooban 10,000 oo qowmiyadood oo madax bannaan, mid walbana ay lahayd luqadooda u gaarka ah iyo caadooyinkooda. Waxayna la noqotay la yaab gumeystaha luqadahooda fara badan ee labada tuulo isugu xigta aysan isfahmayn,
ama ay adag tahay inay isfahmaan. waddanka Zambia waxaa ka socday barnaamijka aadidda dayaxa markay taariikhdu ahayd 1960kii. waxaa laga yaabaa inay kula noqoto la yaab xilligaas in waddan Afrikaan ah oo sidaas u fikirayay, balse ma ahayn mid lagu guuleysto, sababtoo ah arrintan ayaa ku bilaabatay muwaadin Zambiyaan ah oo rabay inuu la tartamo misana kaga guuleysto barnaamijyada hawada sare ee dalka Mareykanka iyo Ruushka ay ku tagayeen dayaxa. waxayna u baahdeen lacag dhan 7 milyan oo pound oo lagu qaadayay 12 cirbixiyeen ah iyo bisad lana geynayay meelaha Mars. hase ahaatee waa loo diiday, sidaas ayuuna ku fashilmay barnaamijkii. waddanka Nigeria waa waddanka ugu mataanayaasha badan adduunka. Nigeria oo ah waddanka ugu badka weyn qaaradda Afrika ayaa waxaa naanays loogu bixiyay dhulka mataanayaasha, sababtoo ah wuxuu leeyahay lambarka ugu badan mataanaha ee adduunka, kaasoo aan laga helin galbeedka Afrika iyo weliba adduunka oo dhan. mataanayaashaasna waa kuwa ka soo jeeda tuulo yar intooda badani. tuuladaas oo lagu magacaabo Igbo-Ora, taas oo 1000kii carruura ee dhalataba 50 ay yihiin mataano. in ka badan 5 milyan oo qof ayaa ku dhimatay dagaalkii labaad ee waddanka Congo. dagaalka labaad ee waddanka Congo, kaas oo bilowday 1 sano kadib dagaalkii koowaad ee Congo bishii August 1998, wuxuuna socday 1 sano, isagoo noqday midka ugu dhimashada badan adduunka intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka. dagaalkan ayaa ka dhex qarxay dalka Rwanda iyo Zaire oo hadda loo yaqaano Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, kaasoo galaaftay in ka badan 5 milyan oo qof. ugu dambeyntiina waxay heshiis nabadeed kala saxiixdeen 2002, laakiin weli waxaa socda rabshado iyo isku dhacyo hoose. haddaba nala wadaag qodobka ama qodobyada ku xiiso geliyay. sidoo kale nala wadaag waxaad jeclaan lahayd inaan ka hadalno muuqaaladeena dambe. fadlan dad muuqaalkan ka heshay like saar, asxaabtaadana la wadaag. assalaamu calaykum.